shirka golaha wasiirada ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta lagu falanqeeyay qodobo badan oo ay ka mid yihiin shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee looga hadlayay amniga waxaana shirkaasi la sheegay in looga hadlay dhammaan sidii dalka looga hirgelin lahaa hawlgal ku saabsan sidii looga ciribtiri lahaa sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab kii golaha wasiirada caadiga ahaa ayaa maanta waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre shirka ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga oo ka mid yihiin dib u heshiisiintii ama heshiiskii bulshada wal jamaaci galmudug shirarkii ka qabsoomay magaalada Muqdisho iyo warbixino laga dhageystay wasiirada qaarkood ugu horreyntii wasiir dowlaha amniga Xasan Macalin iyo wasiir ku-xigeenka Cabdinaasir ayaa waxay ka hadleen arrimaha amniga oo ay ka mid ahayd istiraatiijiyadda amniga gudaha ee 2017 ilaa 2022 oo la diyaariyey ahmiyadda ay leedahay taasoo runtii yoolka saaraysa siyaasadda amniga dalka saldhigna u tahay qorshaha horumarinta qaranka qayb ka ah taasoo ku dhisan sidii waddankan siyaasad xasiloon oo degan shaqo kastoo muwaadina u heli lahaa amni isku haleyn karo oo tayeysan iyo adeeg amni oo waddankoo dhan ka hirgala istiraatiijiyaddaas ayaa golaha wasiirada loo soo bandhigay wasiir ku-xigeenka Cabdinaasir ayaa aad u sharaxay golaha ayaa dood dheer kadib waxay u codeeyeen in istiraatiijiyaddaas amniga la dhaqangeliyo sidoo dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa isagana warbixin looga dhageystay oo ku saabsan heshiiskii galmudug iyo sunna sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wasiir Juxa iyo wasiir dowladiisa wehliye labadaba waxay warbixino ka bixiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalay halkan ka dhacay xarunta madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhuba goobjoog ka ahaayeen halkaasoo ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug ku heshiiyeen in awood qaybsiga ay ka wada mid noqdaan dowladda goboleedka galmudug iyadoo magacii galmudug iyo astaantiba sideeda ahaanayso madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkana ay ahaanayaan siina joogayaan waxaa keliya lagu kordhiyey in la sameeyey madaxa xukuumadda oo Sheekh Shaakir loo magacaabay taasoo runtii loo arkay in heshiisiintaas ay taariikhina tahay dowladda federaalkana ay diyaar u tahay dhamaystirkiisii dhawaana la tegi doono dhuusamareeb si loo dhaqangeliyo kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada qaarkood oo ku saabsanaa shirkii saddexda ka dhacay magaalada Muqdisho oo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha shirkii amniga qaranka kaasoo runtii la isku raacay arrimo badan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar ayaa isagana socdaal uu ku tagay shiisaris looga dhageystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo halka ku dhibaataysan oo warbixin uu siiyay golaha wasiirada dib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad oo ka warbixiyay maxaabiista Seychelles oo dhawaan tagay soona booqday hal ula kulmay isla markaana ay dowladda Seychelles ogolaatay in gariiqaan loo sameeyo arrimooda u dooda heshiisna Soomaaliya iyo Seychelles kala saxiixan doonto si maxaabiistaas dalka gudihiisa lagu soo celiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa iyaduna ugu baaqday culimada Soomaaliyeed shir degdega taasoo looga tashanayo aayaha iyo xagjirnimada dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa kaloo iyadana laga hadlay in wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ay sameynayso shirweyne culimada Soomaaliyeed isugu imaanayaan Muqdisho 16 December shirkaas oo culimada Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa dibadiisa ka imaanaysana looga hadli doono sidii culimadu ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka fikirka xagjirka isla markaana ay waxaa argagixisada meel looga soo wada jeesan lahaa si kastaba ha ahaatee kulanka golaha wasiirada oo maalin walba oo khamiisa ka qabsooma xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa mar walba lagu soo bandhigaa
waxqabadkii xukuumadda ee toddobaadkaasi ay ku tallaabsaday iyo xaaladaha dalka. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere, telefishinka caalamiga Star TV, xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, Muqdisho.